garan karo anigu waxaan kaliya mana rabo inaan runtii heesta aan ka kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida daafaheeda aad ka joogtaan halkani waa Salaama Channel waxaana maanta idinkugu haynaa barnaamijkan waraysi xiiso badan oo aanu la yeelan fanaankeena Dalmar Yare oo ah xubin ka tirsan kooxda waayaha cusub kana soo horjeestay heestii la soo saaray sheegayna inaysan ka mid ahayn mowqifyada kooxdu ee wada tashiga ah sidoo kale waxaan haddana muuqaalkan idinkugu soo gudbinaynaa waraysigii dheeraa ee aanu la yeelanay fanaanka isagoo ra'yigiisii iyo mowqifyadii kooxdii u degsanaa sharciyadii ka hadlaya waa kana nala daawada muuqaalka ugu horeyntii Dalmar Yare ku soo dhawow Salaama Channel maxaad ka leedahay heesta cusub ee nabar iyo naxdin loo qaaday dawladda Soomaaliya maxaad se ka ogtahay wallahi aad baan ku salaamaya wax sababa anigu ma garan karo anigu waxaan kaliya mana rabo inaan runtii heesta aan ka hadlo waxa sababa iyo waxa soo idil laakiin in qoraalka waxaan soo qorno waxay ahayd ani keligay ma ahayn qayb ka mid ah waayaha cusub oo aan arintan waxba ka ogeyn ayaanu shir degdeg isugu nimidnay waxaanu ka hadalnay waxyaabaha sababay kulay anagu shakhsi ahaan si gooni aan uga wada hadalnay laakiin waxaan isla afgaranay inaanu sida anaga xagganaga shakhsiyan go'aankanaga inaan kasoo saarno marka wax sabab aanu ma garan karo runtii caqliyan wax quman oo sababi kara oo in macnaha anaga sharciga noo yaalay wax ka baxsan inay ahayd baan qiyaasaya oo garan karaa saas darteed baan qoraalka soo qornay in sharciga waayaha cusub deganaa oo ah waayaha cusub sababay loo aasaasay sababa ka baxsan in heesta loo isticmaalo waan gartay Dalmar markaad eegtay xaaladda ama ujeedka ma yahay go'aanka aad qaadatay ee bixitaanka waayaha cusub maadaama aad ka mid tahay aasaasayashii ka dhabma ka yahay ka bixitaankii mise xanaaq ayaa keenay oo waad yara dhiriftay oo waad yara xanaaqday oo qura kooxda horta in muddo ah oo dhowr iyo 10 sano ah ayaa wada shaqeyn naga soo dhaxaysay waxaan ka mid ahaa aasaasyaashii koowaad ee waayaha cusub maxaan ku raadayay waayaha cusub waxyaabihii la aasaasay loo aasaasay waxa ka mid ahayd waqti lagu jiray marxalada aad u adag ayaan waayaha cusub aasaasnay oo wadanku aad u meel walba dab ku holcay inaanu dhalinyarada Soomaaliyeed qoriga wadata inaanu ka wacyi gelinay qoriga dhigaan sabab kale oo waayaha cusub loo aasaasay meeshan shuruucaan qorano sharciyaan qoranay inaana shakhsi ku ataagareynin fankanaga fanku sidiisaba waa hanuuniye ma ahan hagardaamo marka sida la ajligeed waayaha cusub markaan arkay aanu arkay hadda xaaladda lagu sugan yahay sida ay u dhaqmayaan waxa isugu kan dambeysay 2 sano ka hor halkan ay la joogeen waayaha cusub Mareykanka ugu yimideen waqti fiican ku wada qaadanay go'aankanagii saas ahaa iyo magacaan waayaha cusub oo aasaasnay in runtii la xumeeyo oo si xun loo isticmaalo aad bay nolol fool xumaatay anagoo badan waliba kaliya shakhsiyan kuma hadlayo anagoo fara badan marka go'aan waxaan qaadanay intii maxaan ku raadayay magac anaga shakhsiyadeed oo faneed uu si ijaafoobi lahaa inaan waayaha cusub banaanka istaagno halka aad naga daawanaysaan waa Salaama Channel Dalmar Yare haddii aan ku soo laabto waxaan ila wareediyo ku dhow aan ka helnay in aad damacsan tahay in aad samayso koox cusub oo dalka Mareykanka ah marka taasina maxaad ka leedahay maxaad ka jiro taas waxa kama jiraan koox waanu nahay wada halka North American Superstars baan la yiraahdaa Mareykanka fanaaniinta joogo aad baan isugu wada xiranahay saasaanu koox kuna laakiin koox waayaha cusub dhiganta iyo wanaagii aan soo qabanay ma u maleynayo in la sameyn doono xataa laakiin kulay magacii iyo sharaftii aan soo sameynay iyo wanaagii faraha badnaa oo bulshada soo sameynay waqtigii adkaa oo bulshada aan la soo wadaagnay wallahi ma u maleynayo koox u dhiganta in la sameyn karo ugu dambeyntii Dalmar Yare maxaad ugu baaqaysaa saaxiibadaadii hore ee waayaha cusub wallahi waxaan ugu baaqayaa oonan already qoraalkanaga ku sheegnay war-saxaafadeedkanaga aanu ku sheegnay in aanu aad uga xunnahay waxa ay sameeyeen maxaan ku raadayay raalina aanan ka ahayn bulshada Soomaaliyeedna waan ku raaligelinaynaa magacii ay aad u taageersanaayeen iyo taageerayaasheenadiiba in ay arkaan magacii runtii aad loogu dhiiqaystay oo aad loogu galgalashay aad baan uga xunnahay waxaan dhihi lahaa in laga waantoobo
annagu markaan u hadleen aanu ka hadlayno waayaa cusub waxaanu hadda difaacayna ma ahan waxa ay sameeyeen waxaan difaacaynaa magaca annaga waxa ay sameeyeen dowlad annagu dowlad ma difaacayno shakhsina ma difaacayno waxaan difaacaynaa magaca annaga waayaa cusub in loo isticmaalo in qof kaleeto lagu ijaa'ifeeyo totally taasaan kasoo horjeednaa macnaheedu ma aha inaanu dowladda taageersanahay macnaheedu ma aha inaanu dowladda kasoo horjeedno macnaheedu ma ahan inaanu ka xunnahay qaabka heesta loo qaaday waxaan ka xunnahay in magacii waayaa cusub loo isticmaalo in fankii maxaan ku idhahday iyo fankii soomaaliyeed oo dhan lagu yaqaanay in si dadban wax loo kormaro in dad lagu aflagaadeeyo totally taasaan anagu ka xunnahay wabillahi tawfiiqaad baan ku salaamay kaasina wuxuu ahay dalmaryare oo inooga warramayey waayaha cusub halka aad nagala socotaan waa Salaama Channel fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe like share wixii comment ah hoos noogu qor waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.